guud ahaan dadweynaha ku nool gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Bari magaalo xeebeedka ganacsiga ee Boosaaso waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarow loogu jiro imaatinka musharaxa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Denni oo la filayo inuu gaaro deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso asigoo magaalada Boosaaso ka degi doono maalinimada Khamiista ah taariikhduna ku beegan tahay 22 bisha November qaar kamida gobolada waxaa la suray boorar waaweyn oo ku xardhan sawirada iyo waliba magaca musharaxa madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Denni odayaasha siyaasiyiinta waxgaradka iyo ardayda ayaa lagu arkayaa ayagoo isku diyaarinayo sidii uga qayb qaadan lahaayeen soo dhaweynta musharaxa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Denni qaar kamida dadka oo la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa u arka in musharaxan uu yahay mid horumar gaarsiin karo deegaanada Puntland magacaygu waa injineer Cabdulcasiis Faarax Xaaji Siciid aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso waxa aan jeclahay inaan ka hadlo taageerada iyo sababta Dr. Siciid Cabdulaahi musharax Dr. Siciid Cabdulaahi Denni oo u yahay sanadkan 2019 doorashada dhacaysa shakhsiga ugu wanaagsan ay ku habboon tahay in shacabka Puntland ay u doortaan madaxweynaha 5 sano ee soo socota sababtuna waxa weeye aqoon fiican oo aan u leeyahay Dr. Siciid Cabdulaahi Denni maadaama aan ka mid ahay dhalinyaro fara badan oo kumanaal ah oo uu Dr. Siciid Cabdulaahi Denni markii dawladda Soomaaliya ay burburtay uu ka mid ahaa amaba se ahaa ninkii u asaasay iskuuladii iyo tacliintii ay ka baxeen maanta dadkaas waxay kala leeyihiin dakaatir anigoo ka mid oo injineer professor dad haysta PhD dad haysta diblomooyin kaalay aan wada dhisnay Puntland barwaaqo ah kaalay aan wada dhisnay Puntland nabad ah kaalay aan wada dhisnay Puntland sharaf iyo karaamo leh kaalay aan wada dhisnay Puntland sharcigu iyo kala dambeyntu ay hogaaminayso kaalay aan wada dhisnay Puntland na wada deeqda oo aan ku faano kaalay aan wada dhisnay inaan dalkeenna hormuud ugu noqono inaan aayihiisa ka tashanno oo aanan u baahan gacan shisheey inaan isku tashanno dhaqaalaheena la soo baxno dadkeennana u adeegno kaalay oo u imow in aan si wada jir uga qayb qaadanno gudaha iyo dibadba inaan dalkeenna quruxdiisa bannaanka soo dhigno